waxaan halkan ka hadlaa waa Mariin Cabdi Maxamed waxaan idin sheegayaa ummadda Soomaaliyeed dhammaan maamulka gobolka Banaadir haddaan nahay degmada Boondheere khaasatan ceel macallin biyahan waxay noogu yimaadaan muddo aanan dhoweyn wadadan Maanabooli ka soo degto ee ka timaado jardiinka soo marta suuq bacaad biyo aanan cadadooda la qiyaasi karin booyad dhuuqi karin oo ilaahay xaalkeena og yahay go'doonaan nahay darbigan hadda aan ku taaganaha noo wada ah waayeelaa joogo carruur aad joogaan hadda meeshan xaalkeeda ilaahay yaa og waxaan rabnaa guryo badan waa naga dumeen dariska male waa laga wada qaxay gurigayga gadaashiisa ilaa 4 boos waa laga qaxay dhibaato weyn aan ku qabnaa waa noo dheer tahay maxaan iraahdaa kaneecaa noo dheer waxaa noo dheer cudur waxaa noo dheer maxaa iraahdaa beeyadoo naga xun qashinka ka yimaado yaaqshiid shibis teeriya fagax miisaanka ka yimaado wuxuu soo qabsadaa wadadan isgooska maxaan iraahdaa jardiinkay soo qabsadaan ku yimaado shibis waxay ka soo degayaan meeshan hormuud shibis hadda laga dhisay waxay soo marayaan dhanka Boondheere waxay soo marayaan ceel muude guriyay soo jabinayaan dhowr jeeraa lagu dhintay meeshaas ilmo badan ku dhinteen dad waaweyn ku dhintay markay soo maraan ceel muude ceel macallin ay soo marayaan guryo badan ay soo jabinayaan kadib hadda ma habeenkii dhaweyd si xun ay si xilla ilaahay nagu badbaadshay dacda booyada laga dhuuqay biyaha ka soo faktay waa isku keena soo furmeen ilaa masaajidka Axmed Buur Fuulay soo dhexmareen marka dawladda sharafta la iyo dhammaan gobolka Banaadir waxaan u sheegaynaa inaan dhibkaas aan qabno ilaahana wax qaban karo bini aadan wax ma qaban karo qof kaligeedna wax ma qaban karto waxaad hadda awoodiin iyo kartidiina aad samayn kartaan inaad noo sameydaan ayaan rajaynaynaa oo biyahan ma ahaan jira annaga meeshan waa ku dhalanay waa ku ilmo dhalnay ayeeyaa nahay waxaan dhalaa wax sii dhalaayo marka alxamdulillaah waxaan ma qaban jirin waa nimco ilaahay noo keenay bal idinkana waxaa asxaan noogu sameeyaan biyahan wadadaas hadda waa la dhisaahan maqalnay shalayto in la dhisaayo haddii la dhiso biyaha badda nooga shuba khayr Allah idin siiyo biyahan oo badda lagu shubin lagama yaabo in laga badbaado shukriga aad waxa deganaan degmada Boondheere biyahan rafaada ku jirnaa waxaan rabnaa in wax noola qabto biyaha waxay nooga imaanay laamiga haween caruur waa lagu baabaa meeshan go'doona ku jirnaa in wax noola qabtaa rabnaa dawladda waxa ka codsanayna wax noo qabato si degdeg in nagala soo gaaro caruurteena waayeel ma noola kala harin biyahan waxa ku jirnaa go'do in wax noola qabto si degdeg ah biyahan waxay nooga imaanay laamiga sida ugu dhaqsiyaha badan dhinaca leenka laamiga in nagala oodaarnaa Maxamed Cali anigoo ah waxaan ka codsanayaa dawladda Soomaaliyeed oo walaalaheena inay laamiyaasha noo qurxiyaan biyaha wadada ay noo qaadaan waa ka shaqaysanahay anaga waxaan nagala qaadaa cashuur yaa sababtoo cashuurta dii la qaadano caalamka laamiga nadiif meel walba nadiif noqoto Maxamed Nuur waxaan deganaa warta Boondheere meesha oo banoonigu lagu dheelo degmada horteeda afalaas biyo qashin dhex taagnay habeenkii xitaa biyaha qaadaay wax naga soo gaaraay anbu wax naga sameeyaan ugu joogno ilmaha duruufa naga heeso ilmaha kaneeco biyo afalaas meel ka adnana qashin afalaas aan dhaxyaalo oo maalmo noolyaal mar walba roob doo yimaado dadkii biyaha gudaafada oo bas ka soo darayaan markay iskaga soo daraan matalan irideena imaanayaan waaqeena gaari male qof nadaafadeed male qof naga sameeyay afalaas dhibaas ku dhaajina waxa ka codsanaa gobolka Banaadir lagu soo gaaro magacaygu waa Raxmaan Maxamed Geedi taytanka MCH-ka urkiga waxa waaye OTB qaybta quudinta carruurta nafaqa darrada hayso haddaan u gudaga mawduuca meesha ku joogto ah warta dacda meeshan ku taal bulaacad soo fatahday degmada MCH-ka Boondheerana daris ay la tahay run ahaantii dacdan waxaa barbaran badan fara badan ay ku haydaa deegaankan ama degmadan Boondheere caafimaad darrada ka dhalan kartana waxa waaye in cunugii oo warta nabadda meesha haday tagaan shuban biyood ay ku dhacaan ilmaha in kor cuncun oo ku dhaco sidoo kale in cudurradii malaariyada oo kale ila kaleeca meesha ka dhalan karto kaneecadii ay faafto ilmihii malaariyada ay ku dhacdo gabi ahaan waxa waa horta xanuunada la isku kala gudbiyana badanaa waaba laga kala qaadi karaa marka problemadaas aad ku fara badan ayaa laga dhaxli karaa waxa dacda Boondheere والله إن كمين بلشة إسكو تكتو وعيقلين فربان أي سمايانو أو الله سمايو للرادي حلقو ودو حلقة روا مهم أنا كعف مالهان وحن دلبانينا إن سدوغو معقول صن لو حلي دعنا ماشي ورطة ماشي بيه الجيران إن لو حلي جاءنا حسين محمد أنا Boondheere وحكمنا عنك بالله حتى عندما نفوق من الدنيا جوا كوي بلوه
وحوالي واحد من تأيي واحنا جدريين وحين لا نحن وعقبنا نقول لا من الصوبايا واحد ما يعيش معاشر من الليل ما هدام بالعدد سبحانه وتعالى إن رجع السواقين اللي قلت ترى واحد بالعدد كدسة بريا بالعدد كجرا المال بالعدد بيقادا بدك كل شباب ولا كجرا وإلا قد بقي يا سفارة سريانية وإلا دافية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقعي ومريد عبدو عبدالله وقف كل نول دقمة بونديرة ولا عدان أما ورت بعلمت دقمة حرونت الدقمة ورت هذا كتار دبعتنا عن قبنا وحياتها قشن أي بوح دافي بيفر بدن ويمدين ورو كان داد كود أي يمد دبعت بدن أنا قبنا وعاربنا مطور كهذا يا المطور كل لو عاوية وأفر إلى 20 ساعة لو شقيه سيد هذا لو شقيه iyo gobolka banaadir qaybta howlaha guud in ay noo soo diraan baabuur aad u wanaagsan oo tayo leh oo biyaha naga daabulo haddii aan saas la sameynin burbur maaliyadeed iyo burbur nafsi ah dhacayso waxaa kaloo dhici doona cudurrada faafa ayaa mataqaanaa halis loo yahay sida kaneecada amaba cudurrada cuncunka kalooraha ama shoobiyadka sida loo yaqaano marka dacda markaas intaas uga tagno wadadan jubbada sare ayaan rabaa inaan ka hadlo wadada jubbada sare waxaa loo sameeyey qorsho oo maxuu ahay wadda ayaa loo sameeyey lagu dhisayo wadadaas la dhisaayo haddii aysan lahaynin kanaal biyo dareerin ah wadadaas wax ay anfici doonta ma jirto waxa wadada ay ku teesantaha waa maxuu ahay waaxda Siinaay iyo waaxda Nasiib Buundo iyo qayb ka mid ah dalje maxuu ahay Yusuf Alkoone markii aan ka hadalno waaxdan Nasiib Buundo haddii aan loo sameynin kalaaska biyo dareerinta kun guri ayaa ku taal 600 guri ayaa biyo looga kala gooyo haddii aan saas la sameynin waxaa dhici doonta Nasiib Buundo dhan in laga gooyo oo naf badanna lagu waayo hantida guurtada oo canshuurta laga qaadanayo lagu waayo magacaygu waxa waaye Sultaan Maxamed Awood Axmed degmada siyaasadda ee degmada Boondheer marka dadka Boondheer ku dhashay waa kamid ahay runtii Boondheer mar alla markuu roob da'o dhibaatooyin fara badan ee lahaan jirtay laakiin hadda mala dhibaatooyinkaas waxaa kamid ahaa xaafado badanaa laga qaxi jiray oo guryo badanaa dumi jiray dad badan oo masaakiina hataa wax ku gaari jiray hadda guddoomiyaheena khayr allah siiyo guddoomiyaha gobolka banaadir runtii wax weyn uu qabtay ilaahay ha mahadsan asagana waa fujiyey inuu maxaan ku ihahdaa hawshaas noo qabto injineero iyo khubaraha la keenay iyo deegaanka ka mid ah waxay go'aansadeen maadaama aan la heli karin lacag malaayiin doolar oo biyahan lagu maareeyo farsamay keeneen waxay yidhaahdeen matoor ha la keeno biyahan dhacdaa mar alle markay buuxsamaan ha la tuuro marka matoor oo habeen iyo maalin shaqeynayaa la keenay inta keenta ilaahay ajir ha ka siiyo runtii wax weynay qabatay biyihii laamiga fariisanayay biyihii wixii dhammaay waa yaraaday ebel xaafaday aadi jireen hadda xaafada uma dhaqaaqaan waa ilaahay mahadiis guddoomiyaha gobolka banaadir aa mahadsan iyo maamulka degmada Boondheer meesha dhinacan kale haddana guddoomiyihii shalay wuxuu noo ballan qaaday waddadan oo ka bilaabanaysa Jubba ilaa Jabdiinka inay maxaan ku ihahdaa dhisi doonaan laami oo tayo leh haddana wuxuu nagu baraarujiyey ama uuna amray inaan ilaalsano laamigaas anigana waxaan weydiinay biyaha see loo maareyn karaa dhibaatada ugu weyn dhinacan biyaha ay ka yimaadaan marka waa maareeyaynaa yidhin laakiin waxaan mas-uuliyaddeeda rabnaa inaa qaadiin laamigaas iyo maktibiyeedkaas oo qarash badan ku baxay inay labada degmo ilaalsadaan ballantaasna waa qaadnay waana fulihaynaa hadduu ilaah yidhaahdo runtii guddoomiyaheena ilaahay ha barakeeyo isaga iyo tiimkiisa waana ku mahadsan yihiin shaqaday qabteen runtii alxamdulilaahi roobkan hadda deerta ah oo xooga badan leh hadda hal habeenoo tii ka dhacday waa layaaba degmadii albaabkeeda laga celinayo marka fartamadan nimanka keenay in matoor la keeno biyaha xaawataaka lagu tuuro
والله أجر فرب بلن لكن بويدي خرج بدنا أكو بحجري وقلب دور من هالك بياجو ويران لحظة بلد مركز هذا ما شاء الله مطور غيري ما لنا شغير هاي شغال كذا أنا قاعد دبرنه ما مو قابلنا كذي منك مطور كشغينا العكسية ما مو قدك ملا بحناي مركز إن شاء الله تعالى موسع عن هذا ما مرة ساعة مطور حاطوها ليش ما إلهي إنتي وشغينا هاي inay biyaha u tuuraan xaawataako walaa hadda qorshaha horaan uga hadlay oo biyo tuurada waa wadnaa oo aan badda lagu shubo xaawataaka loo diraa kadibna badday ku shubeysaa laakiin midaan biyo fariitiga ah oo kaneecada iyo baalaha iyo cudurka ka dhalanayo taas runtii waxaan u kaashanaynaa ilaahay subxaana wa tacaala u kaashanaynaa waxaan u kaashanaynaa wasaaradda caafimaadka iyo laasimaha waaxda caafimaadka ee gobolka banaadir oo gudbinaynaa marka farmashiyaalka iyo waxa lagu deegaan oo ganacsataana naftirkooda waxaan ka codsanaynaa ama aan ku wacyigeliyeynaa inay korlorin ugu yaraan naga caawiyaan si baaladaas iyo kuwan kale maxaa la yidhahdaa kaneecada buufana iyagoo kalena u yeerno oo qaybta caafimaad ka mid ah marka waxaas oo hadda ka horna waa sameynay haddana waa dadaaweynaa dadkana waa ka wacyigeliyeynaa inay iska ilaaliyaan ilmaha yararka ku qubaysanaya biyaha dacda in cudur laga qaado maxaan ku yidhahdaa fara badan marka taasna insha allahu tacaala waa ku tala jirnaa inay meel fiican noo maxaajiyada runtii dhibaatada noogu weyn boonder horta waa god waaye iyo rigley haddana waxaa biyaha waxaa ugu daranba xaafad walba ilaahay amarkiisa waxay soo raacinaysaa jawaano cafaayad iyo bac maqaayadihii hilib uraayo iyo raashin qurmay wax alla wixii ay ku dari karaan ay ku daraya waana cadownimo wax fiicanna ma aha waa cudurkaasna ilmahaas hadda fiiri guri aniga hooyada ay dhigan tahay qashin ma laha biyo deg waayo maalintii oo roob yimaado 2,000 oo jawaan albaabkeeda soo daadinaya waxaa soo daadinayna waa diriska ku dhow hooyada xaafadda marka dadweynaha waxaan u digaynaa war ilaahay ka cabsada ilaahay subxaana wa tacaala ka cabsada nadaafadda nabigu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam waa imaanka naftiisa qashinka wadada laga xaaqay hadda qashin wadada laga xaaqay iska dhaafay haddaa cafaayad aada looda u tuurto oo biyaha dacda a ku riddo oo jawaanada aad soo raaciso hadda makaa baaqane hadda 2 maalmood roob da-ay haddaa jawaano ciida ama jawaano qashina aad ku jirto maxaan kuraa soo raacisa biyaha makaa baaqane ninkii kuu shaqaynaya shalay oo $5 kaa qaadanaya makuu baaqanaysa waa lagaa rabaa marka inaad tugto ninka kuu shaqaynayo oo kambaniga kuu shaqaynayo nadaafadda inaad labadaada jawaan saarato oo ilaahay ka cabsatid oo aad ka dhaaftid ummadda dhibka ummadda la dhibaayo ka mid tahay dhibka ummadda laga daayo dadweynaha boondheer taasaan ugu baaqaa waa aragteen laamigan dheero jenaraal daa-uud jawaanada laga soo raaciyo calakamiin iyo xariyaale maqaarka taallo waa la soo raaciya cadownima loo raaciya war ilaahay ka baqa bulshada ku nool gobolka banaadir iyo degmooyinka nagu hareeraysan waxaan ka codsanaynaa ilaahay ka baqa nadaafadda waa naga dhexaysaa waa dan guud